Kenya ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa ay soo dhoobtay xadbeneedka ay wadaagaan magaalooyinka Mandera iyo sidoo kale Balad Xaawo. Madaxweynaha Jamhuuriyaddana waxa uu ciidamo ka dejiyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi Sool si ay hordhac uga noqdaan safarkiisa uu halkaasi ku tagayo. Soo dhaw daawade haday tahay markaaga kugu horeysay ayaa soo booqato halkan subscribe noo saar noon like gare muuqaalkan wad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. Aanu ku hormarno. Wararka laga helayo gobolka Gedo waxa ay ku waramayaan in ciidamo tira beelahi oo ka socda kuba Kenya ay soo dhoobteen xadbeneedka isla markaana ay gudaha u soo galeen gudaha magaalada Balad Xaawo. Tani waxa ay timid ka gadaal markii si weyn ay bulshada maalmihii ugu dambeeyay ay uga dibad baxayeen dhaqdhaqaaqyada ciidan ee halkaasi ka jira ee ay sameynayaan ciidamada Jubbaland ee fariisinka ku leh duleedka magaalada Mandera. waxaana la tilmaamayaa hadda isla markaana ay banaanka uga baxeen magaalada Mandera waxayse wararku tilmaamayaan in guud ahaanba Kenya ay ciidamo dul dhigtay kuba halkaasi ku sugan ee Jubbaland ciidamada KSF ta ee sida gaarka u tababaran ee booliiska dowladda wadankaasi Kenya ayaa la tilmaamayaa inay gudaha u soo galeen magaalada Mandera isla markaana dhaqdhaqaaqyo xoogan ay halkaasi ka wadaan ciidamadan sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba ay hakiyeen isu socodka iyo sidoo kale inay bulshada labada deegaan ay isu gudbaan waa Mandera iyo Balad Xaawo waxaana ciidamadu ay soo buux dhaafiyeen xadka waxaana la tilmaamayaa inay gudaha u soo galeen magaalada Balad Xaawo dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaana laga dareemaya bulshadu waxay si weyn cabasho uga muujinayaan ciidamada Jubbaland ee halkaasi fariisinka ku leh oo maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan looga digayay oo haddana dhaqdhaqaaqyo ciidan weli halkaasi ka wada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya ayay uga ashtakoodeen shacabka deegaanka in ciidamada Jubbaland laga dulqaado waxaas la tilmaamayaa inaysan jirin ilaa iyo hadda cid cabashadooda ka jawaabta marka laga reebo senatarada deegaanka ka soo jeeda iyo sidoo kale xildhibaanada oo guud ahaanba iyagu ka biyadiiday dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka soconaya waxaa la tilmaamayaa in bulshada markan ay u diyaar garoobayaan inay iska dulqaadaan ciidamada Jubbaland ee halkaasi sida sharci darrada ku jooga isla markaana dhowaan ka tallaabay xadbeneedka dhaqdhaqaaqyada ayaa la tilmaamayaa in wajiyo kala duwan ay leeyihiin isla markaana ciidamada xadka ku wada sugan ay siyaabooyin kala duwan u hubaysan yihiin ciidamadan Kenya ayaa la tilmaamayaa in siyaabooyin kala duwan ay u qalabeysan yihiin isla markaana ay doonayaan in ay kaliya sugayaan amarka la bixiyo ee ah in guud ahaanba mar la amro inay ka dhaqaajiyaan ciidamada Jubbaland halkaasi si markaasi bulshada ay u dareemaan deganaanshiyo iyo xasilooni ka gadaal markii ciidamada Jubbaland lagu soo eedeeyay in ay dhacayo sidoo kale bilaqo u geysanayaan dadka deegaanka oo iyagu cabsi xoogan maalmihii ugu dambeeyay ka muujinayay waxaa wararka la helayo ay tilmaamayaan in gudoomiye Maxamed Aadan Khalifa gudoomiyaha ismaamulka Mandera guud ahaanba uu sheegay inaan la aqbali doonin dhaqdhaqaaq waliba oo aanan ka tarjumaynin amniga iyo sidoo kale kala dambeynta deegaanka ka jirta waxaana uu hoosta ka xariiqay inay qaadin doonaan weeraro aan la mahdin doonin haddii dowladdu ay ka jawaabi wayso dhaqdhaqaaqyada militariga halkaasi ka jira waxaa sidoo kale hanjabay senator Cali Roba oo isaguna ku matala dowladda dhexe ee wadankaasi Kenya magaalada Mandera waxaana uu yiri 10 daqiiqo oo kaliya ayaa ku filan inaanu soo afjarno ciidamada halkaasi ku sugan ee Jubbaland haddii aanu idan ka helno dowladda dhexe waxaana uu sheegay haddii dowladdu ay ka jawaabi wayso inay tagi doonaan gudaha magaalada Mandera dagaalkana uu hogaamin doono sidoo kale xildhibaan Xuseen Weytaan oo isaguna matala deegaanka isla markaana kamida golaha wakiilada guud ahaanba dowladda wadankaasi Kenya ayaa waxa uu sheegay inaan la aqbali doonin dhaqdhaqaaq waliba oo aanan ka tarjumaynin xornimada iyo madax banaanida deegaanka waxaana uu sheegay in dadka uu matala ay gaarayaan ilaa iyo 10,000 kuwaasina ay mar qurihii ay ku dhaqaaqi karaan si loo soo afjaro isla markaana loo soo qabto ciidamada Jubbaland ee fariisinka ku leh duleedka magaalada Mandera waxay u muuqanaysaa in hanjabaad meeshii ugu dambeysay ay marinayaan saraakiisha hogaaminaysa ismaamulka Mandera waxayna marayaan meeshii ugu dambeysay oo ay ka hadlaan Jubbaland wali kama aysan hadlin hanjabaadaha ka soo baxaya ismaamulka Mandera ee ay markaasi uga hanjabayaan ciidamada Jubbaland ee halkaasi ku sugan waxaase sidoo kale ashtaka ay u gudbiyeen dowladda dhexe ee Soomaaliya si looga dulqaado ciidamada halkaasi ku sugan janan ayaa la tilmaamayaa in lagu wargeliyay in ciidamadaasi uu halkaasi ka dhaqaajiyo maadaama iyagu ay la direen isla markaana ay xadka ka soo tallaabiyeen
waxaa lagu wargeliyey ciidamada Jubbaland in aagaasi ay ka wareegaan isla markaana dhanka iyo magaalada Doolow ay u gudbaan. taasina waxaa la tilmaamayaa saraakiisha ciidamada hogaaminaysay in guud ahaanba tallaabadaasi ay ka biyadiideen ayna u muuqanaysa istiraatiijiyad dagaal joogitaankooda duleedka magaalada Mandheera waxayna u muuqanaysaa tallaabo guud ahaanba mar kale ay isku adkaynayaan ciidamada Jubbaland. mar kale ayaa la tilmaamayaa in laga cabsi qabo weeraro inay ka dhacaan gudaha magaalada Balad Xaawo maadaama ciidamada Jubbaland cadaadis ay ku saarayaan ismaamulka Mandheera in guud ahaanba xadka ay ka tallaabaan waxaana ku diyaarsan xadbeneedka ciidamada militariga Soomaaliya oo qaybahooda kala duwan leh kuwaasi oo guud ahaanba ilaalinaya xadbeneedka si ay guud ahaanba usoo gudbin ciidamada Jubbaland waxaysan noqonaysaa tallaabo culus oo ay wajihi karaan ciidamada Jubbaland haddii ay xadka ka soo tallaabaan. waxaa kaloo jira isla markaana suuragal ah inay fooda isdaraan ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa Kenyaanka ee halkaasi ku sugan oo waa barigii hore ee saaka soo dhoobtay xadbeneedka isla markaana hakiye dhaqdhaqaaqa dadka iyo deegaanka waxaana guud ahaanba isu socodka gaadiidka iyo dadkaba la hakiyey magaalooyinka Mandheera iyo sidoo kale Balad Xaawo oo ay dadku siyaabooyin kala duwan si maalinlihii ay isaga gooshi jireen. hadda waxaa la tilmaamayaa in hakad uu ku jiro isa socodka taasina waxaa sababtay guud ahaanba ciidamada halkaasi lasoo dhoobay kuwaasi oo guud ahaanba dadka weydinaya aqoonsi iyo inay gudaha u galaan Kenya oo guud ahaanba laga diiday dadka ka tallaabaya dhanka iyo magaalada Balad Xaawo. dhaqdhaqaaqyaduna waxay noqonayaan kuba culus oo muddooyinkii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan looga cabanayay dadka deegaanka ka gadaal halkaasi oo ay dhaqdhaqaaqyo ka sameynayaan ciidamada Jubbaland. Ethiopia ayay sidoo kale ismaamulka Mandheera saraakiisha hogaaminaysa ku eedeeyeen inay hurinayso dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gobolka Gedo waxaana kale oo ay sheegeen inaysan noqon doonin moral lagu xareeyo ciidamo gudaha magaalada Mandheera waxaana hoosta ay ka xariiqeen in Ethiopiaanku aysan awood u yeelan doonin mar kale inay hub keenaan gudaha magaalada Mandheera ka gadaal markii la sheegay in halkaasi la geliyay gawaari sida hubka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo loo gacan gelinayo ciidamada Jubbaland ee fariisinka halkaasi ku leh. dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka soconaya ayaa u muuqanaya isu biratumasho xoogan oo dhinacyadu markaasi ka dhexaluusan Kenya iyo Jubbaland ayayna xisadu tahay waxaase madoobe markan uu u janjeeraya dhanka iyo Ethiopia waxaase maangala guud ahaanba in dhinacyadu markan ay soo taaraan haddii aan la helin garab kale oo isku howla guud ahaanba xal u helida khilaafka ka dhexaluusan maamulada Mandheera iyo sidoo kale Kismaayo oo isku haya guud ahaanba joogitaanka ciidamada Jubbaland ee gudaha magaalada Mandheera. madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayay wararku tilmaamayaan in ciidamo tiro beela uu diyaarada uga qaaday gudaha caasimada Muqdisho kuwaasi oo laga dejiyay magaalada Laascaanood. tirahan ciidamadan waxa ay gaarayaan ilaa 1,000 askari kuwaasi oo guud ahaanba ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan. waxaa la tilmaamayaa inay sugayaan amniga madaxweynaha waxayna tageen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee ismaamulkaasi waxaase la tilmaamayaa in guud ahaanba dhaqdhaqaaqyo xoogan halkaasi durbaba ay ka bilaabeen ciidamada halkaasi la geeyay si ay u hubiyaan amniga guud ee magaalada caasimadu ah maamul goboleedka Waqooyi Bari waxaana la tilmaamayaa hadda in magaalada laga dareemayo joogitaanka ciidamadaasi maadaama siyaabooyin kala duwan ay u hubinayaan gawaarida dhex muraasaya magaalada iyo sidoo kale isu socodka dadka oo iyaguna qaybo badan oo kamid ah goobaha muhiimka ee markaasi loo qorsheeyay in madaxweynuhu uu daga guud ahaanba laga xanibay waxaase la tilmaamayaa tallaabadaasi inay timid ka gadaal markii firdhiyo uu amarku bixiyay in ciidamo halkaasi la geeyo maadaama aan lagu aamini karaynin sida ay sheegeen amniga guud ahaanba ciidamada halkaasi ku sugan madaxweynaha waxaase la tilmaamayaa hadda dhaqdhaqaaqyadu inay xoogeysanayaan. sidoo kale magaalada Og waxaa la tilmaamayaa hadda inay ku sugan yihiin ciidamo aad u tiro badan oo kuba Somaliland kamid ah ka gadaal Cabdiqaadir oo Cali Firdhiyo oo dhawaan sheegay in guud ahaanba ay qaadi doonaan weerar ay ku soo ceshanayaan deegaanada gacanta Somaliland uga maqan. Somaliland waxa ay xaqiijinaysaa amnigeeda waxaase la tilmaamayaa in ciidamo tiro beelahay ay soo dhoobtay oo kuwaasi oo maangala in guud ahaanba ay ka soo dhaqaaqaan halkaasi si ay gudaha uga soo galaan Soolta Bari oo ay u taqaano Somaliland ismaamulka dhawaan galka iyo Waqooyi Bari waxaase la tilmaamayaa dhaqdhaqaaqyadu inay wajiyo kala duwan yeelanayaan. Somaliland dhankeyda waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale ay qorsheynaysa dhaqdhaqaaqyo kale oo gobolka Sanaag ay ka sameynaysa si loo hakiyo qorshe waliba uu markaas lagu doonayo in guud ahaanba ay ku gaaraan ciidamada ismaamulka Waqooyi Bari oo dhawaan galka waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba hadda xaaladdu ay wajiyo kala duwan yeelatay dhaqdhaqaaqyaduna ay si xoogeysanayaan lama soo oga halka ay saldhigan doonaan.